السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ورئيسن داوديال إذا هانتين با كسر دوادا وركا ورباهنت بدوين وركا وحن لسعسين يعني واه محمد عبد الرشيد قضبدا وركا نوغو دور كورونا وحا كميدا mid kamida beelaha habargedir oo go'aan dhabar jab ku ah madaxda dawladda ka qaatay madaxweyne xaaf Carabe iyo Cali Gacal oo laga war dhowrayo go'aankooda siyaasadeed ee xiisadda Galmudug maadaama hore ay u diidanayeen aaditaanka Dhuusamareeb xaaf oo ka baxay heshiiskii Al-Sunna kuna dhawaaqay doorasho heshiisna la galay filla Soomaaliya ra'iisul wasaare Khayre oo ku wajahan Dhuusamareeb iyo isbedel laga dareemayo magaalada wasiir ka tirsan xukuumadda Khayre oo sheegay inuu guriga ka iibsaday Muqdisho Hargeysa iyo waliba Mareykanka haddaba waa ka wasiirkaasi iyo waliba Cabdikariin Xuseen Guuleed oo siyaasadda dib ugu soo laabtay iyo sababta keentay uu shaaciyay xilli uu hore isaga casilay madaxweynaha Galmudug intaas waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu door karoon haatan asagiyo fidsan ومالنما سنينا تاريخنا يكون بيغانتهاي 24 جون 2019 كسو دواada warkeena wararka aan ka helino magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi goordhow lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay imaanshiyaha madaxweynaha Galmudug ee Cadaado shirkaas ayaa waxa ka qayb galay odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiinta deegaanka isla markaasna waxa go'aan ay ku gaareen in madaxweyne Axmed Ducaale Gale Xaaf oo haatan ku sugan yahay deegaanka Godinlaba lagu soo dhaweeyay magaalada Cadaado sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta ka qayb galay kulanka ayaa isku raacay inay Cadaado markuu yimaado madaxweyne Xaaf la dejiyo xarunta madaxtooyada halkaasi oo markii hore uu ka shaqeyn jiray wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in Xaaf uu xiriir kala duwan la sameeyay wax garadka ku nool Cadaado isla markaasna uu ku wargeliyay inuu ku soo wajahan yahay waxaana muuqata in odayaasha durba aqbaleen codsiga Xaaf madaxweynaha Xaaf ayaa dagaal siyaasadeed kala dhaxeeya magaalada Cadaado wixii ka dambeeyay markii uu heshiiskii la galay Al-Sunna isagoo fariisin ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb waxaana isbedel ku yimid markii Al-Sunna heshiiskii la gashay dawladda federaalka Soomaaliya isagoo qoraal uu soo saaray xalay ku sheegay inuu waxba kama jiraan yahay heshiiskii Al-Sunna uu la galay dhanka kale maamulka Galmudug ayaa xilligan galaya marxalad siyaasadeed oo aad u adag waxaana laba garab hadda u kala jabay maamulka Galmudug uu Xaaf hogaaminayay iyo garabkii Al-Sunna uu hogaaminayay Sheekh Axmed Shaakir Xaaf oo muddooyinkii ugu dambeeyay saldhig ka dhiganaya magaalada Dhuusamareeb ayaa halkaas shalay ka qaatay boorsooyinkiisa waxa uuna Xaaf safar dhinaca dhulka ugu ambabaxay Gaalkacyo isagoo sii mari doona magaalada Cadaado oo inta badan diyaarad uu ku dulmari jiray magaalada Cadaado ayaa muddooyinkii dambe waxa xarun u ahayd garab kamid ah maamulka Galmudug oo ay hogaaminayeen gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabe madaxweyne Xaaf oo isaga cararay Dhuusamareeb ayaa xalay ku dhawaaqay in doorashada ay ka dhacdo Cadaado waxaana suurtagal ah in Xaaf Cadaado ku dhahdo lana kulmo wax garadka Cadaado si uu u raali galiyo qaladkii uu ka galay sidoo kale madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in gabi ahaanba uu burburay heshiiskii Jabuuti Al-Sunna iyo Galmudug war qoraal ah oo ka soo baxay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Gale Xaaf ayaa sheegay inuu buray heshiiskii hore u dhaxmaray madaxda Al-Sunna iyo maamulka Galmudug sidoo kale madaxweyne Xaaf ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu ogol yahay in doorashada Galmudug ay ka dhacdo isla markaasna lagu qabto magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud bisha soo socota ayaa la filayaa in doorashada ay ka dhacdo magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud daawadayaal halka aad weli nagala socotaan waa warbaahinta Badweyn haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe deh gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan mar walba muuqaaladeena kala duwan ee aan soo galino haddii aad yiraahdo halkan maanta ayaa la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ahna xarunta maamulka Galmudug inay gaaraan wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre shalay galinkii dambe ayaa waxa Dhuusamareeb gaaray wafdi hordhaca u ah safarka ra'iisul wasaaraha iyo qaar kamid ah ilaaladiisa waxaana maanta safarka ra'iisul wasaaraha laga dareemayaa magaalada Dhuusamareeb
ujeedka safarka ra'iisul wasaaraha uu ku tagi doono dhuusamareeb ayaa waxaa lagu sheegay in xaaladaha ka taagan maamulka galmudug iyo go'aanka gaarista sida ay u dhici lahayd 4 bisha soo socota ee Juun doorashada maamulka galmudug. waxaa maanta si weyn loo adkeeyay ammaanka magaalada dhuusamareeb waxaana ammaanka sugaya ciidamada maamulka galmudug oo lagu xoojiyay ciidamada danab ee xoogga dalka kuwaasoo dhawaan la geeyay magaalada dhuusamareeb. ciidamada ayaa baaritaano waxay ka sameynayaan gaadiidka isticmaala xaafadaha magaalada dhuusamareeb iyo kuwa soo galaya magaalada. waxaana jira diyaar garow ku aadan qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. warar kale oo soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo senatarro ay ka tageen magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud si xal looga gaaro xaaladda siyaasadeed ee si cakirmaysa ee Galmudug. dhanka kale wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in guriga uu ka dhisay Muqdisho iyo Hargeysa iyo waliba Mareykanka iyadoo muddooyinkii dambe la isla dhexmarayay in wasiirka maaliyadda Soomaaliya uu ka dhistay guryo fara badan gudaha iyo dibadda ayaa waxa arintaas markii ugu horeysay ka hadlay wasiirka oo la hadlay mid kamid ah warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa qiray inay jiraan guryo badan uu leeyahay iyo kuwa kale oo hadda dhisanayo. Masar Beyle ayaa sheegay in markii uu soo laabtay dalka uu magaalada Muqdisho ka dhistay guri cusub si uu ugu noolaado. sidoo kale waxa uu tilmaamay in guriga quruxda badan uu ka dhistay muddo 10 sano ah uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uuna xusay in haatan la soo gabagabeeyay dhismaha gurigiisa. wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa intaas ku daray in guri kale uu aad u weyn ku leeyahay dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Soomaalida u badan tahay Minneapolis. Beyle waxa uu iska fogeeyay in dhammaan lacagtaasi ay ku soo gashay qaab musuqmaasuq ah balse waxa uu xusay in uu shaqeynayay 30 sano ee la soo dhaafay isla markaasna uu qabtay hawlo kala duwan kuna sameeyay hantidaasi. hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii dambe ay soo baxayeen dhaliilo iyo eedeymo ka dhan ah maamulka maaliyadda oo loo jeediyay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. ugu dambeyn madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay ku guuldareystay xalinta mashaqada muddada dheer ka aloosan dowlad goboleedka Galmudug. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynayso maamulka Galmudug inay gacanta u geliso koox gaar ah. waxaan shaki ku jirin in dowladda dhexe ay ku guuldareysatay xalinta mashaqada muddada dheer ka aloosan dowlad goboleedka Galmudug iyadoo aan reer Galmudug isku dhaafin si ay arrimahooda u xalistaan ama aan ka ciyaarin door shariif ah oo ugu horeyso faqriga dhibaatada iyo abaaraha ka jira maamulka Galmudug. waa sida uu sheegay madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. Masar Guuleed oo sii hadlayay ayaa yiri haatan waxaa muuqata in dowladdu ka shaqeynayso sidii awoodda maamulka goboleedka Galmudug ay u gacan gelin lahayd koox gaar ah arrintaas oo aan sax ahayn mid maamul iyo mid sharci midnaba. ugu dambeyn waxa uu ku baaqay dowladda inay xaaladda u caga dhigto arrinta maamulkaasi aysan gelinin meel xun oo aan waxba laga qaban karin isla markaasna ixtiraamto sharciga dowladda iyo kan maamulka Galmudug. oo aad ku maasanteen daawashada wararkeena iyo warbixinadeena fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe deh gambaleelkana furo si ay mar walba iyo had walba ku soo gaaraan wararkeena iyo muuqaaladeena xiga haddii aad loo yiraahdo. haddaba ku xirnow wehelna ka dhigo warbaahinta Badweyn si ay ku soo gaarsiiso mar walba warar xaqiiqo ku salaysan.